السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا برنامجكينا maalmaha dunida oo si toos ah kaga imaanaya stuudiyaheena ku leenahay magaalada London barnaamijkeena alaaba ku soo qaadana mowduucyo kala gadisan oo saameyn ku leh bulshada Soomaalida meel walba caalamka ka joogaan ayana toddobaadkan waxa barnaamijka marti inoogu ah xildhibaan Qaasim Aadan Saleebaan oo qadka si toos ugu jira isagoo oo jooga magaalada London xildhibaanka waxa uu ka mid yahay xubnaha golaha wakiilada ee Somaliland gaar ahaan wuxuu ka sii mid yahay guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada isagoo matala ama ka soo baxayba xisbiga wadani ee ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Somaliland xildhibaan Qaasim run ahaantii aad iyo aad baan kaaga mahad celinayna waqtigaaga qaaliga ku soo dhawo barnaamijka maalmaha dunida aad baan idin salaamayaa maxamed saciid saxafi iyo barnaamijkan qiimaha badan ee maalmaha dunida inaad ugu marti qaadaan maanta waan idinka mahad celinaya waayahay aad aad baad u mahadsantahay xildhibaan run ahaantii waxaynu ku faraxsanna barnaamijkan nagala qayb qaadatid inagoo jeclaynaynu su'aalo badan kaa weydiino khaasatan siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxaad tahay xubin ka mid ah golaha wakiilada ee Somaliland waxaad ka soo baxday xisbiga wadani ee ka mid ah xisbiyada siyaasadda ee Somaliland weliba waxaad ka mid tahay xubin ka mid ah guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada dhawaanahana siyaasadda Somaliland qaasada markay timaado sida mowduuca qaybta hoose ee shaashada barnaamijka ee daawadaashu ay ka arki karaan isbeddello siyaasadeed oo arrimaha dibadda ee Somaliland ayaa la dareemayay qaasatan safarkii madaxweyne Muuse Biixi Cabdi uu ku gaaray dalka Mareykanka waxaad fadlan inoo dulmartaa safarkaas ujeedadiisa iyo weliba maadaama aad ka mid tahay xubin ka mid ah guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada sidee uu ku soo bilowday safarkaas sideena ku soo dhamaaday bismillah sidaad ka warqabtaan ama lala socdo runtii safarku wuxuu ku bilaabmay si qurux badan wuxuuna ku soo dhammaaday si wanaagsan oo aad u reersaraysa 12 bishii saddexaad bay ahayd markii madaxweynaha iyo ergadii la socotay ay safarka galeen xilligii ay soo laabteen 26 buu ahaa marka almost 15 days 15 days buu qaatay waad garan kartaa safar intaa dal ku qaatay inuu ahaa safar qiimo badan aad u wanaagsan sida aan ka warqabnana madaxweynaha iyo ergada la socotay waxa ay tageen goobo badan waxay galeen shirar badan muhiimadda safarkaasi waxa uu ahaa kor u qaadidda siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland tusidda Somaliland muhiimadda Somaliland u leedahay caalamka oo runtii aanu ka bilownay meelihii ugu wanaagsanaa hadday ahaan lahayd safaradii hore oo UK ahaa iyo kan dambe oo ah Mareykan waxaa muuqata in siyaasadda Somaliland runtii ay u socoto jaha fiican safarka madaxweynuhuna arrimahaas uu ahaa waxaana muuqata arrin aad u wanaagsan runtii oo qurux badan oo lagu faano maanta inaanu ka bilownay dalalkii ugu weynaa hoyga uu ahaa dimuqraadiyadda maanta aanu wada fadhino ka wada shaqaynano horumarka iyo wax wada qabsiga siyaasadaha Somaliland tegidda madaxweynuhu meesha tegay runtii wuxuu u tegay Paris Somaliland runtii la yaqaano inaanu ahayn dal xorriyadiisa qaatay 26 June 1960 la midoobay dal kale marka in la fahamsiiyo caalamka taariikhda Somaliland inuusan ahayn dal ka tirsan uu yahay dal la midoobay kana hor qaatay xorriyadda waxyaalihii aanu soo marnay ee ayna dhaxal siisay midnimadaasi la fahanteedu ka mid bay ahayd waxyaalihii madaxweynuhu uu ku soo bandhigay khudbadiisii heritage waxyaalaha burburada ka dabacdi iyo culaysyadii naga soo gaadhay dhinacii aanu la midownay marka laga yimaadana waxay ahayd wixii aanu qabsanay intaa wixii ka dambeeyey inaanu noqonnay dal madax bannaan iskii isu maamula gooni isu taag ku dhawaaqay calankiisa iyo dhaqaalihiisa iyo amnigiisa iyo dimuqraadiyadiisaba leh tusnay caalamka runtii meel maanta lagu qiimayn karaa Somaliland bagcadaasi inaysan jirin habka loo socdo ee dimuqraadiyadda waxaan tusnay oo garnaqsiga madaxweynaha ka mid ahayd halka aanu u soconno iyo waxa noo dhiman intaba oo ay ka mid tahay in ictiraaf aanu helno waayahay waxaad ka tirsan tahay qaas ahaan haddaan usoo noqdo xildhibaan in aad ka mid tahay guddiga sida gaarka kaga mid ah guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada baarlamaanka waxaa jiray qorsho waxaa laga yaabaa inaad qorshayseen maxay tahay ujeedada ugu weyn aad u doorateen wadamada reer galbeedka
iyadoo ay ogtiin inay muhiim tahay xiriir inaad la yeelatiin ama fikradda ictiraaf raadinta laga gado wadamada dariska, wadamada gobolka, wadamada qaaradda Afrika. maxaad reer galbeedka uga bilowdeen? lagama bilaabin reer galbeedka. Afrikaduna waa horeysay. East Africa oo dhan hadday noqoto, Afrikada kale oo dhan hadday noqoto, waad la socotiina madaxweynuhu safaradii ugu dambeeyay oo Afrika ku tegay marka Ethiopia iyo Djibouti iyo meelaha darisyada laga reebo iyo Kenya. Guinea baa ka mid ahayd wadamadii iyaga lafaantoodu aadka noola shaqeeyay oo lahaa Somaliland ictiraafkeeda ka shaqeynayay ama ictiraafayba. marka waanu ka soo bilownay siyaasaduna waanu wadnaa, ta gudahana waa wadnaa, tii dibaddana waa wadnaa. marka waxaanu nidhi war bal haddii tii gudaha ee dariska dalalkii dariska ahaa ee Afrika ay halkan marayso, carabta waad la socotiin lafaantooda kama badnin. bal dhinacan kale dowladahan sarsarena ama adduunka haddeerta ugu horumarsan ee ka mid tahay Ingiriiska iyo Maraykanka oo taariikho qadiimiyi naga dhexeeyaan lafaantooda inaan dib looga fadhiisan ee la tago. waxayna noqotay tallaabo qurux badan oo ku dhiirasho leh, aad iyo aadna runtii u soo dhoweysay dalalkaas iyo annaga labadaba aanu aad u soo dhoweynay isdhexgalka. haddaan usoo noqdo safarkii madaxweyne muuse bixi uu ku taga waddanka Maraykanka, wuxuu ahaa mid dhinacyo badan leh oo uu la kulmay qaybaha kala gedisan ee jaaliyadda Somaliland, ama ha noqoto mas-uuliyiinta kale dalka Maraykanka, ama ha noqoto hay'ada caalamiya. idinku xisbi ahaan tala sidee ayaad ku lahaydeen xisbigeena wadani? wax tala ah oo aad ku lahaydeen kulamadaas madaxweynuhu uu ka qayb galay ama aad qayb ka ahaydeen oo ninkala tartama jirtaa? arrimaha siyaasadda arrimaha dibadda iyo kolley qaab fulin baa jirto oo dowlad baa dalka loo doorto, dowladdaa mar walba jihaysa. kama madhnin tala ahaan iyo tusaale ahaanba hadday ahaan lahayd. aragti loo dhammaystiran yahay bay ahayd oo xisbiyada lafahaantooda iyo shacabka Somaliland oo dhani ay taageereen. golayaal ahaanna aanu ku taageernay madaxweynaha in tallaabo kasta oo loo qaadayo aqoonsi raadiska Somaliland la qaado. runtii talagelyo badan baanu ku lahayn, waanu soo dhoweynay, waa ku dhiirigelinay, waa ku garab istaagnay. hadday noqoto soo anbabixiisii, hadday noqoto tegidiisii meelaha uu tegayay oo dhan, hadday noqoto jaaliyadihii soo dhoweynayay, haddii ay noqoto soo noqodkiisii aad arkaseen sidii loo soo dhoweeyey quruxda badnaa. arrimaha dibadda marka ay timaado Somaliland waa hal mid bay ka tahay dhinacaas. wafdiga madaxweynaha xubnaha raacay sida badanaaba dhacda haddii wafdiga uu yahay wafdi kulamadiisu ay yihiin wasaaradda arrimaha dibadda ama wasaaradaha kale sida ganacsiga ama difaac oo kale, xubno ka mid a xubnaha golaha wakiilada ee weliba gudiyadaas ayaa la wadaa ama raaca sida caadiyan dhacda. ma jiran xubno ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada oo ka mid ahaa wafdigii madaxweynaha weliba khaasatan wafdigiisii hadda uu hogaaminayay ee taga waddanka Maraykanka? way runtii way ku qurux badnayd in golaha wakiilada ama labada goleba gudiyadooda arrimaha dibaddu ay raacaan madaxweynaha, laakiin qorshaha ku talagalka oo maaragtay iska xilli dambe ahaa. waxaanu ku lahayn talagelyooyin badan baanu ku lahayn, waa jeclayn, waa u soo jeedinay aragtida ah in gudiyada dad laga wato, weliba especially anigu waxaan ahaa dadkii fikirkaas soo jeediyey ee aaminsanaa in labada gole dad ka socda haddii la awoodi karo xisbiyada lafahaantooda. sababtoo markaad adduunka heerarka noocaasa tegaysid waa muhiim inaad dhammaystiran tahay oo dhinac walba ka dheeli tiran tahay. waan u soo jeediyey fikirka ah in gudiyadaasi ay ka mid noqdaan, laakiin wixii talagelye ahaa baanu gudbinay. haddii aanu ka maqnayn maaha inaanu ka maqannahay, laakiin aragtidayadii iyo fikirkayagii meesha way marayeen. laakiin waxaan u fahmay inaad leedahay xubno ka tirsan guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiiladu ma aysan ka mid ahayn wafdiga? shakhsiyan kama mid ahayn, laakiin aragti ahaan waa ka midaysnay iyo fikir ahaanba wixii aanu qabnayna waa u gudbinay, waa la wadaagnay, intii aanu odhan lahayna waa noo yidhaahday. dib u soo noqoshada intaan loo gudbin uu madaxweynuhu ku noqday Somaliland, laakiin safaradiisa waxaa kaloo ka mid ahaa inuu la kulmay gudiyo kale iyo hay'ado kale oo markaa xiriir uu sheegay inay ahayd sida uu ku soo qoro bartiisa baraha internetka ama saba uu la wadaagay dadweynaha. kulamada kale waxaad kala socoteen ma jirtiin ama ra'yiyaha aad ku darsateen guud ahaan kulamadii kala gedisnaa oo madaxweynuhu uu la yeelanayay dadkii kala duwanaha uu la kulmay? sidaan horeba kuugu sheegay, marka ay timaado arrimaha dibadda Somaliland waa ka midaysan tahay. kala qaybsanaan iyo kala fikir ahaani ma jirto. wax walba oo ay xukuumadda iyo madaxweynuhu qaadeen waxay ahayd waxaanu ku raacsannahay, talagelye ku lahayn, uu nagu matelayay meel walba oo uu tago. way jiraan, waa xaqiiqo inuu wasaaradda arrimaha dibadda ee Maraykanka la kulmay,
inuu la kulmay labada aqal ee senator congresska iyo senatorska uu la kulmay oo aad la socotid runtii inay ay qoreen motion ay ku muujinayaan maaragtay qaabkii Somaliland loola macaamili lahaa inay xukuumadda u gudbiyaan iyo golayaashooda oo runtii ahayd arrimo aad iyo aad u wanaagsan meelihii kale uu tegey waxaa ka mid ahayd in ganacsato badan iyo ummadda si la isu dhexgeliyo lala kulmo hay'ado badan oo madax bannaan ay ka mid ahaayeen hay'adaha dimuqraadigu ay ka mid ahaayeen UN-kana waa ka warhaynaa inay Capitol Hills ay tageen madaxweynaha iyo wafdigiisu ay la kulmeen madaxda sare ee UN-ka marka runtii dhammaantood waxay ahaayeen wax aanu ka midaysannahay nalagu metelayay aan kala ahayn xisbi iyo xisbiyo aan kala ahayn ahayd qaran Somaliland oo la doonayo in ictiraaf buuxa loo raadiyo la gado caalamka laga gado waanu u midaysanay xukuumadduna ay nagu metelaysay waan gartay arrimaha siyaasadda Somaliland qaasatan arrimaha dibadda sidaad sheegtay Afrika iyo wadamo kale oo dhowr ayaa jira oo kulamay hore u dhaceen qaarna la qorsheenayo inay dhacaan oo qayb ka ah marka laga soo tago kulamadaas haddiiba arrimaha dibadda ay timaado waxaan aaminsanahay in ama ay dadku ay arki karaanba in dadaal ay socdaan oo dadaaladaas ay sameynayaan Somaliland iyo markay timaado mas'uuliyiinteeduba laakiin dadaaladaas waxaa ka maqan soo lama oran karo dhanka wadahadaladii ay la lahaayeen dowladda federaalka ee Soomaaliya Soomaaliya waad la socotaa runtii wadahadallo badan baa jiray oo hore u bilaabmay oo xukuumadihii hore ay ka qayb qaateen Soomaaliya sidaad la socotidna wax walba oo lagu soo heshiiyey xilliyada ah oo ay xukuumadaha hore ku soo heshiiyeen waxba ma aysan ka fulin waxaana culays ku ahaa dhinaca Soomaaliya oo aysan ka jirin sidaa awgeed sida hadda muuqatana ma muuqato meel Soomaaliya la oran karo wadahadaladeedii ayaa qabyo ah ama lagu wada hadli karaa xilliga kan sababta Soomaaliya iyadiiba hadeerto xaaladeedu adag tahay iyadiiba maaragtay aan dhisnayn iyadiiba la soconnaa in gudaheedii iyo guryaheedii iyo deegaamadeediiba ay qaraxyo iyo dhibaato ka dhacayso amnigeediiba sugnayn marka ay ka soo gudbaan levelada noocaas ayuunba la oran karaa maxaa la is oran karaa laakiin intii horena way jebiyeen oo Soomaaliya jebisay oo ka wada baxday haddana runtii ma muuqato meel wada hadalkaasi ama albaab nooga furan ma muuqdo wadahadallada ay jebiyeen dhanka dowladda federaalka aad sheegtay inay jebiyeen maxaa ka mid ah waxyaabaha aad isleedahay way jebiyeen oo suurtagali waayay wax walba oo runtii lagu heshiiyey way jebiyeen ay ka mid ahayd Somaliland inay u madax bannaanaato hawlaheeda gudaheeda heshiisyadeeda caalamiga hawadii ay ka mid ahayd maaragtay systemkan maamulka hawada uu ka mid ahaa eedaynta iyo cambaaraynta ay ka mid ahayd in la xasaradeeyo oo wax la iska daba qoraayo ay ka mid ahayd qodob kasta oo lagu heshiiyey oo heshiisyadaa ka mid ahaa dib haddii loo dabagalo runtii dhinaca Soomaaliya ka jiro laakiin markay timaado siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland ama siyaasadda guud ahaaneed ee Somaliland muhiimad gaar ah ayay tahay in la siiyo soo kulamo ahaan wadahadallada dowladda federaalka si walba ay u jabeen wax dadaala oo dhankiina oo ku aadan wadahadalladaas ma jiraan oo aad wadiin ama qayb ka ah qorshihiina qaasatan guddigiina golaha wakiilada u qaabilsan siyaasadda arrimaha dibadda wixii kolley wadahadallaa hadeerto waxaa mas-uul nooga ah xukuumadda kama maqna in mar walba ay maaragtay golayaasha iyo xisbiyadu ay talooyin badan ku leeyihiin laakiin sida aan kuu sheegay Soomaaliya maanta ma joogto meel aanu ku wada hadallo xaqiiqeen dhib uma rabno inay hagaagto oo wax qabsato oo ay soo gaadho heer ay tiraahdo waan idinkula hadlayaa ama waxaanu ku wada hadallahay ay noqon karaan wax midho dhala waan u rajaynaynaa laakiin xilliga kan ma muuqato meel Soomaaliya boos nooga bannaan yahay wada hadal xaqiiqeen arrimaha dibadda ha noqoto ama arrimo kaleba ha noqotee wayahay dowladda federaalka iyo guud ahaanba Soomaaliya waxaa ka socda doorashooyinka waxaa lagu wadaa isla sanadkan in la doorto madaxweynahana uu noqdo mid ka mid ah musharaxiinta iminka is sharaxay ama madaxweynaha iminka talada hayaba idinku isha mu ku haysiin siyaasad ahaan markay timaado doorashooyinka Soomaaliya iyo weliba musharaxiinta u tartamaya jagada madaxweynenimo ee dalka Soomaaliya sida muuqata Soomaaliya kulli doorashooyin baa ka socda muddo dhaaf bay ku jiraan oo xiliyadoodii way dhaafeen madaxweynaha hadda joogaahi waa xilli dhaaf wax faragelina kuma lihin arrimahooda siyaasadda arrimahooda doorashooyinka
waxaan ka rajaynaynaa inay doortaan madaxweyne ka shaqaynaya amnigooda iyo dhisidooda dan u ah dadka iyo deegaanka dan u ah marka wax lugah kuma lihin xaqiiqiyan arrimahooda siyaasadda iyo laakiin markaa fiirisiin siyaasiyiinta musharaxiinta ah ee u sharaxan inay qabtaan jagada madaxweynenimada Soomaaliya si gaar ah marka loo fiiriyo ajandahooda siyaasadeed ama se fikradahoodii aragtiyadooda siyaasadeed ee ku aadan Somaliland haba noqotay tusaale ahaan ma jirtaa siyaasiyiin aad isleedihiin haddiiba ay beri noqdaan madaxweyne ama ayba noqdaan taladii dalka Soomaaliya ku wahaya waad la fariisan kartiin mar kale ama siyaasad ahaan waad isku dhowdihiin mar walba madaxweynaha Soomaaliya ka soo baxa ayay u taalaa sida uu aragti ahaan ka qabo Somaliland annagu waxaanu nahay dal ka madax bannaan Soomaaliya weli way jirtaa in caalamku uu si isugu kaaya riixayo madaxweyne walba waxaan ku qiimeynaynaa aragtidiisa waad la socotaayoo kuwa hore oo madaxweyneyaal ahaa la fadhiisananay baa jira kuwii hadda soo marayna waxaa muuqata ama kuwan hadda fadhiyana aysan boos nooga bannaanayn wada fadhigoodu marka waxaan ka rajaynaynaa madaxweyne garta Somaliland qadiyadeeda madaxweyne garta Somaliland gooni isu taageeda madaxweyne ka dhabeeya ictiraafka Somaliland inay hesho oo maaragtay inuu ka soo baxo Soomaaliya oo aanu noqono laba dal walaala ah ka wada tirsan caalamka dhinac walba iska kaashada hadday noqon lahayd IGAD hadday noqon lahayd African Union hadday noqon lahayd Arab World hadday noqon lahayd United Nations laba calan oo ka taagan oo isgarabsada wax ka wanaagsan iyo fikir ka wanaagsan oo muuqdaahi ma jiro waan ka rajaynaynaa madaxweyne intaa garta inuu ka soo baxo Soomaaliya aan u soo laabto xisbiga aad ka tirsan tahay wadani ka mid ah xisbiyada siyaasadda Somaliland sidaynu ognahay waxaa jirta marka dhinacyo badan laga fiiriyo in saamaynta siyaasadeed ee wasaaradda arrimaha dibadda ee Somaliland ee iminka weliba talada haysa Somaliland saamayn ay ku yeelanayso siyaasaddii guud ee Somaliland idinku fursad ahaan xisbigeena wadani ma isleedahay fursaddiina aad bay u sii yaraanaysaa haddii xisbiga kulmiye uu noqdo ama siyaasadda arrimaha dibadda ee kulmiye ay noqoto mid u sii dhowaanaysa marba marka ka dambaysa ictiraaf raadinta waan ku ammaanaynaa xukuumad iyo cid walba oo ka shaqaysa aqoonsiga iyo ictiraaf raadinta iyo xidhiirka caalamiga ah ee Somaliland la leedahay caalamka iyadoon loo eegin xisbiyo iyadoon loo eegin xukuumad cid walba oo ka shaqaysa runtii xisbiga wadani ee aan ka soo baxay kaalin weyn buu ku leeyahay arrimahaas ictiraaf raadinta Somaliland sidaan hore u sheegay ka mid buu ahaa goobo badan hadday noqon lahayd kuwii hore ee xataa Soomaaliya lagula wada hadlayay qayb bay ka ahaayeen haddana talooyinkooda iyo ictiraaf raadinta qaybtooday kaga jiraan waad la socotiin hadda safarkii ugu dambeeyay aan filayo weli inay ku sugan yihiin Kenya waxaa ku sugan ku maqan guddoomiyihii xisbiga wadani Xirsi Cali Xaaji Xasan iyo musharaxii madaxweynaha Cabdiraxmaan Maxamed Cabdullaahi Ciro waxay u socdaan waa qadiyadda Somaliland waxay u socdaan waa dimuqraadiyadda Somaliland waxay u socdaan waxa weeyaan kamida dhalinta qadiyadda Somaliland iyo dimuqraadiyadeeda ayayna caalamka ka gadaan inaanu nahay dal doonaya in ay maaragtay adduunka wax ku darsadaan doorashooyinkooda xilligooda la qabto taasoo ah waxyaalaha runtii muhiimka noo ah marka guddoomiyaha xisbiga ucud lafaantiisu uu maaragtay meel walba u maray oon la soconno marka xisbiyadu qayb weyn bay ku leeyihiin arrimahaas runtii waayahay aan dib ugu soo noqdo safarka madaxweyne muuse biixi cabdi waxyaabaha la xusi karo waxaa ka mid a khudbado dhowra buu jeediyey jaaliyadii buu la kulmay idinku wax xiriira oo xisbi ahaan aad la samayseen intuu madaxweynuhu halkaa jiray ma jirtaa oo aad la wadaagayseen aragtidiina iyo fikraddiina kulan walba iyo sida wax u dhacayaan dadka la joogay oo geesaha kaga jiray waxay ahaayeen shucubtii reer Somaliland ee qurbaha ama North America ba aan dhahno kuwaas oo ahaa xisbi walba ka tirsan xubnihii noogu qaalisanaa ama xisbi ahaan wadani iyo taageerayaashii ugu qiimaha badnaaba waxay ka mid ahaayeen dadkii madaxweynaha ku garab taagnaa safarka shacabka ugu tumayay ku dhiirigelinayay talooyinka iyo tusaalayaasha la garab taagnaa marna aanan faaruqinin meelihii uu ka deganaa dalalka ama meelihii uu marayay oo dhan wax kastoo ay la qaban kareenna ka qabteen si buuxda oo mug leh ayaa wadani uga dhex muuqday safarka madaxweynaha waayahay aan usoo laabta siyaasadda arrimaha gudaha inkastoo isku xiran yihiin arrimaha gudaha iyo arrimaha dibadda Somaliland marka la fiiriyo dadka ku nool guud ahaan deegaanada Somaliland
siyaasadooda ku aadan gooni sutaaga markay noqoto siyaasadooda ku aadan wax wada qaybsiga markay noqoto siyaasadooda ku aadan in wax la wada leeyahay su'aalo badan baa badana ka soo noqda ama ka yimaada idinka xisbi ahaan maxaa in kaga qorshaysan xisbigiina wadani dadka tabanaya ama tabashooyinka qaba ee reer Somaliland ay waliba degan deegaanadii Somaliland waa dhab tabasho way jirtaa meel walba haddaad aragtid waddankan aynu joogno ee UK xukuumadda ka jirta dadka taageersan ama u codeeyey waa in kooban in badan oo kale aanan u codayn baa jirta waa xaqiiqo in deegaamo cabasha ka jirta ama tabasha ka jirta ay jirto waxa qorshuhu yahay ama ha noqoto xukuumaddan hadda jirta ama tawadani ee iman doonto haddii alla wada la ogolaado in mid walba oo yimaaday uu ka shaqeeyo sidii gobolladaas cabashadooda ama tabashadooda loo tixgelin lahaa ka mid tahay gobolka aniga la iga soo doortay qoraalan maalin dhaweeta soo dhigay barahana ay ka mid ahayd runtii maaragtay in dadkii calanka Soomaaliya la soo baxay ee madaxweynuhu markuu halkaa joogay ku soo baxay ay ka mid ahaayeen dadka deegaamada aan ka soo jeedo u baahan yihiin in lala hadlo waa wax aanu xallisan karno arrimaha iyaga gudaha waa wax aanu doonayno inaanu si toosa u gallo dadkaas waa la fadhiisanaynaa waa dadkayagii waa dad ka tirsan deegaanka waxaan rajaynaynaa oo aan arkaynaa Somaliland isku duuban ayaa wax tari karta iyaduna wax tari karta caalamkana wax tari karta cid walba oo wax tabanaysa waanu la kulmaynaa waxa ay tabanayaanna waa tixgelinaynaa sida aan sheegnayna waxaan ka shaqayn doonaa anigu ama aan horeba u sheegay sidii deegaamada la iga soo doortay loo dhegaysan lahaa waxa ay diidan yihiin ama waxa ay tabanayaan si ay uga mid noqdaan Somaliland loo dhan yahay marka loo soo laabto wadamada beelaha qaasatan safiirka UK oo kale Soomaaliya marka loo soo laabtay badan oo kamid ah siyaasiyiinta wadamada reer galbeedku markay timaado arrinta Somaliland ama dawladda federaalka oo kale wada hadallada labada dhinac ama gooni sutaaga ama i'tiraafka Somaliland oo kale markay noqoto in i'tiraaf raadinta loo helo waxay badanaa siyaasiyiinta reer galbeedku dib ugu soo celiyaan arrinta inay leeyihiin waa mid u taala Soomaalida dhexdeeda waa mid u taala Somaliland iyo dawladda federaalku inay ka heshiiyaan markay timaado arrinta midnimada oo kale isleedahay guddigiinan arrimaha dibadda ee golaha wakiiladu waqti badan iyo xeelad iyo markay timaadaba dhaqaale waxa ku bixiseen in aad la kulantaan wadamadii kale caalamka laakiin tii Soomaaliya oo wadamada reer galbeedka qaarkood dib in kugu soo celinayaan waqtiga gelinaysan waa yar yahay isleedahay sida ka muuqata qoraaladooda runtii waa draft isku wada mid ah marka meelaha la fiiriyo sida ay leeyihiin waana maaragtay waxyaalaha saxaafadda dhigayaan laakiin marka la wada hadlo ee miiska lagu wada hadlo aragti ahaan waxaad arkaysaa inay yihiin dad maaragtay fahmaya qadiyadda Somaliland dad u hoggaansan garan kara waxa aanu ka hadlayno dad arkaya caqabadaha ku xeeran waan riixaynaa waana gaari doonaa xilli draftkaas ah in maaragtay Soomaaliya lala kulmaahay meesha uu ka baxo idamka alle annaga baarlamaan ahaan qayb ahaan weliba guddiga iyaga arrimaha dibadda xil baa saaran aqoonsi raadiska Somaliland qaybaha ugu waaweyn ay ka mid yihiin guddigani intii uu jiray oo koobanna dalal badan buu tegey oo ay ka mid tahay Kenya oo ay ka mid tahay Finland oo ay ka mid tahay Sweden kii hadda ugu dambeysay guddiga arrimaha dibadda ee labada gole ay ku yimaadeen dalka Belgiumka ayaa ka mid ahaa safarro badan oo kale oo noo qorshaysanna way jiraan sidaan hore u sheegayna runtii Soomaaliya iyadii baa hadda tukubaysa iyadii baa jaban iyadii baan weli kabmin boos ka bannaan ama aragti haddeerta ka bannaan ma jirto waa laga yaabaa mustaqbalka in la yidhaahdo ha la wada hadlo ama aragti noocaasi ay timaado laakiin haddeerta waxaan u rajaynaynaa Soomaaliya inay soo gaadho meel ay gorgortan ku iman karto inaanu wada hadalno ama isku hor fadhiisano aan usoo laabto siyaasiyiin badan oo waxaa jira kasoo jeeda deegaanada Somaliland ama ha ahaato deegaanka laga soo doortay ama deegaanada kale Somaliland qaarkood ama in badan oo kamid ay kamid yihiin xubnaha baarlamaanka ee dawladda federaalka Soomaaliya wasiirra ah ilaa jagooyinka sare ka haya dawladda federaalka Soomaaliya oo aan aaminsanayn fikirkaas isla markaana iyagu deegaan ahaan dad ka soo jeeda iyo dhalasho ahaanba deegaanada Somaliland dadkaas sidee ku qancinaysiin maxay sataa waxaan kaga qorshaysan siyaasad ahaan waa xaqiiqo sidaan hore u sheegay dadku waa kala aragti waa kala fikir wax kasta waxay ma jirto wax bini aadam uu ku midoobi karaa aragti ahaan
in dad naga fikiri ay jiraan waa suuragal sida aan sheegayna waxaan ka shaqaynaynaa in shucubta Somaliland intooda ugu badan lagu qanciyo wadajirka Somaliland iyo wada lahaanshaheeda lagu qanciyo taasoo runtii maaragtay budliga wax walba marka qof ama laba fikir kale qabay oo intuu maamul kale ama gobol kale ama dal kale intuu tagay xil ka qabtay wax macnaha weyn oo Somaliland dhexdeeda ka sameynaya ma jiraan wala soconnaa kuwii shalayto xilalka ka hayay Somaliland arrimaheeda ugu xumaa ayaa maanta aan xil ka haynin ama waayayba xildhibaanimadii ay u socdeen maaragtay oo waayay waan la soconnaa kuwo hore uga tirsanaa oo siyaasadda iyo fikirka aaminsanahay inay dib u soo noqdeen oo cafis weydiisteen oo ay yimaadeen dalka marka waxaan qabaa lama huraan waa caws jiilaan inay halkan isugu wada imanayaan aragtidana laga midoobi doono idamkan laakiin marka si kale loo eego isdhexgalka bulshada iyo isku gudubka dadweynaha shacabka waa la ogol yahay siyaasiyiinta kaliya ayaa u muuqda in culays la saaro ama dadka magaca leh markay timaado kamid noqoshada tusaale ahaan inay kamid yihiin siyaasadii Soomaaliya mararka qaar fanaaniin waxaa la arkaa iyo weliba dad kale magac iyo maamuus bulshada ku dhexle haddii ay tagaan meelaha qaar dhanka Soomaaliya ama ay raadeen dhanka Koonfureed in ay iyagu yihiin dad markay ku noqdaan dhanka iyo deegaanada Somaliland ay la kulmaan qaarkood la xiro qaarkood sida sheegtay warbaahinta la hadlaan arrimahaas waxay noqonaysaa arrimo dadkii si kala dheeranayso lama oran karo hadiiba la doonayo in mustaqbalka sidaad sheegtay ay noqdaan laba dowladood oo isgarab istaaga taas sidee taa lagu gaari karaa haddii dadkii tagay koonfurta loo arko inay yihiin dad iyagu cadow shacabka reer Somaliland way u furan yihiin meel walba hadday noqoto ganacsi hadday noqoto shacab way u furan yihiin dal walba oo ay tagi karaan ha noqoto dalalka dariska ama dalalka si fog ha noqoto waxa muhiimadda qofkaasi inuu ku koobnaado wixii uu ahaa matalaadiisu hadduu ganacsade ahaana ganacsadihiisa ku koobnaado hadduu shacab ahaana uu shacabnimadiisa ku koobnaado laakiin waxyaalaha culayska keenaysa waxa weeyaan qof shacabihi inuu arrimo siyaasadeed faraha la galo marka uu dal kale tago ama meel kale tago oo hadhowtana yiraahdo meeshii baan kusoo noqonaya waxyaalaha noocaas waa waxyaalaha xoogaa culayska keenaya waxaana qabaa waxaasi in maaragtay ay iska dhammaan doonaan idinka wayahay ugu dambeyntii guddiga aad ka tirsantahay arrimaha dibadda ee golaha wakiilada maxaa u qorshaysan marba haddii la tago Mareykankii doodii Britain waynu daawanaynay xubnaha baarlamaanku ay ka doodeen arrinta Somaliland qorshihiina xiga muxuu yahay maxaa inii qorshaysan markay timaado arrinta ictiraaf raadinta waa xaqiiqo ictiraaf raadinta Somaliland jidad badan bay soo martay waa soo jirsatay muddo badan bay soo socotay waa suuragal inaan dhaliilo badan leenahay qaran ahaan oo aan la gaarsiinin meeshii loogu talagalay laakiin waxaa muuqata saadaal fiican siyaasadda arrimaha dibadda iyo wasiirkeeda hadda yimid runtii waa ku ammaanaynaa waanu wada shaqayn dhow kala leenahay arrintaa fikirkan iyo aragtidan cusub ee dardargelinta ee uu soo bandhigayna waanu ku taageersannahay waxyaalaha muhiimka ee annaga gol ahaana saaran waxa weeyaan inaysan ka soo noqon Somaliland jidka quruxda badan ee ay martay in ay qurxiso dimuqraadiyadeeda in doorashooyinku xilligooda ku dhacaan iyadoo loo eegayo sida ay u soo kala horeeyaan in laga hortago khalkhal siyaasadeed ama khalkhal isqabqabsi oo dhinac doorasho ama dhinac xil ku yimaada oo rigaadiya horumarkii iyo wanaagii ay Somaliland ku socotay marka mas'uuliyadana saaran waxa weeyaan mar walba in aanu ka shaqeyno dimuqraadiyadda in doorashooyinku xilligooda ku dhacaan in ay u dhacaan sida ay u soo kala horeeyaan in aan khalkhal siyaasadeed meesha aynu maanta marayno looga baahnayn in dib lagu soo celiyo inaanu dhisno xiriirka caalamiga ah aanu la leenahay adduunka inaanu safarada badino inaanu xiriirada badino inaanu garaacno albaab walba oo aanu aragno qadiyadda iyo danta Somaliland inay ku jirto waan ku hambalyeynaa wasiirka arrimaha dibadda ee Somaliland fikirka cusub ee uu ku siyaadiyay siyaasadda Somaliland dal walba waxaan ka doonaynaa wixii aanu wada qabsan karno oo aragti wanaagsan waayo hal iyo laba qaybi ugu dambeeyaan jecelaha fursad inaan sii daawadayaasha alaabayna ka codsano fariimahoodii fikradoodii inala wadaagaan daawadahan waxaa la yidhahdaa Asli Maxamuud Jawcaale ka mid ah daawadayaasha barnaamijka iminka sida tooska u daawanaysa waxay leedahay weliba ay ku weydiinaysaa ama fikir ahaan bay inala wadaagaysaa gobollada qaar oo ay ka wada gobollada Somaliland ayaa doonaya inay Soomaaliya ka mid noqdaan kuwaas maxaa uga qorshaysan reer Somaliland sida idinkuba aad u doonaysiin inaad uga go'diin ama ictiraaf gooni aad u heshiin waxay leedahay Asli gobollo kale ayaa jira arrimaha dibadda markay timaado aad ka mid tahay guddigaas golaha wakiilada arrimahaas ma ka hadashaan in dadka iyagu
doonaya ama se fikir ahaanba doonaya inay weli kasii mid ahaadaan dhanka koonfurta ama Soomaaliyaba sida aan sheegay ummad meel ku wada dhani ma jirto waa run waa tabasho way jirtaa dad wax tabanaya way jiraan sidaan hore u sheegayna waxaan ka shaqaynaynaa in cid walba oo reer Somaliland ah in lagu qanciyo Somalilandnimada lagu qanciyo taasaa noo muhiima taas ayaanu haddii aanu gooni u go'ayno aan noqonano sida aanu haddaba nahay dal aanu noqonana waxtar ku noqonana haddii ay noqoto inaanu cid la hor fadhiisanano ama cid la hadlaynana ay waxtar noo noqonaysaa sidaa awgeed waxaan qabaa in tabashadayada gudaha aanu isaga nimaadno cid walba oo wax tabanaysana la tixgeliyo la helo aragti laga midaysan yahay oo isu soo jiidisa goboladaas anigaa layga soo doortay dad badan oo kale laga soo doortay aasaasiyaashii Somaliland bay ka mid ahaayeen Somaliland bay ka mid yihiin dalkay wax ku leeyihiin siyaasadday wax ku leeyihiin deegaankay wax ku leeyihiin marka waxaan u malaynayaa aragti ahaan waa lagu kala duwanaan karaa laakiin maanta runtii reer Somaliland ma joogaan meel ay Soomaaliya u sacabtumaan ama ay Soomaaliya oo aynu ognahay halka ay marayso ay say u burbursan tahay ay u riyaaqaan ma joogno maanta waayahay aad si aad u mahadsantahay waxaynu soo gaaray gabagabadii iyo gonaanadkii barnaamijkeena oo aynu ku soo koobaynay qaasatan siyaasadda arrimaha dibadda ee Somaliland waxa barnaamijkeena maalmaha dunida martii noogu ahaa xildhibaan Qaasim Aadan Salebaan oo qadka si toos ugu jira isagoo jooga magaalada London kana tirsan xubnaha golaha wakiilada ee Somaliland isagoo ka soo baxay xisbiga wadani ee ka mid ah xisbiyada Somaliland wuxuuna si gaar ah uga sii tirsan yahay guddiga arrimaha dibadda ee golaha wakiilada Somaliland xildhibaan Qaasim barnaamijkan iyo barnaamijyo kale haddii badano jecelna nagala qayb qaadatid marka koowaad waxaanu ku leenahay mahadsanid markii xigtana waxaanu ku rajaynaynaa guul aad baad mahadsantahay saxafi iyo barnaamijkaaga aad iyo aad baan idinka mahadcelinayaa martiqaadka quruxda badan mahadsan adiga mudan waxaanu soo gaarnay gabagabadii gonaanadkeena intaynu ku kulmayna barnaamijkiisa xiga waxay dawdaasha fariimaha iyo fikradaha noogu reebi karaan qaybta hoose ee barnaamijkeena amase aad nagala socoteen bogaynu ku leenahay baraha bulshada sida bogga barnaamijka maalmaha dunida iyo weliba bogga British Somali TV labadaba aad inoogu reebi kartiin intaynu ku kulmayna barnaamijkiisa xiga waa anigu Maxamed Saciid Saxaaf iyo guud ahaan bahda barnaamijka oo idinkaga tagay meel baad caalamka joogtaan sidaas iyo nabadgelyo